boqolaal Soomaaliya ayaa maanta halkan ku dukatay salaadii ciida waana markii ugu horeysay markaskan Daarusalaam tan iyo markii la iibiyay salaada ciida lagu ciido Soomaalida ku nool Australia iyo muslimiinta guud ahaan halkan ku noolba maanta ay waxay maalintii ugu horeysay ee Ciidul Fidriga ummadda islaamka salaamaya meel kasta joogan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa maalin farax leh inay ku ciidaan ayadoo ay jurxi jiro dhibaato badan ay jirto ummadda islaamka أنا دعينا واحد لبات هاي ستو عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير خير all المسلمين around the world وحن لنا عيد وناكسن ما شاء الله ماشان قروح بدن دار السلام إسلامي سنتر أيان ما أنت وجوه رسول عيدينا دمان وحن سلام المسلمين تا وأدونك جوكت دن قارهان أستراليا وحن قار سلام أولاد عندي إمامة الماء إلى شدنا دقيقة شقادر وإلى مكان أو مقالة بنباسي كنوش هاي أنا ku hadlay magaca maamayaasha Heidelberg waxaan u tahniyadeynayaa community-da reer Heidelberg iyo Soomaalida iyo muslimiinta dhamaantood ciid mubaarak aan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo salaam Allah nagu gaarsiyo waxaan aad ugu faraxsanahay beertii aan abuuranay miraheedo noo soo baxay alxamdulillah meeshaan maanta aan ku tukanay beer aan abuuranay waaye miraheedina waa guranay ilaahay waxaan ka baryaa inuu noo siyaadiyo sanadkan sanadkiis Assalamu alaikum everyone it's our first Eid at Dar es Salaam wishing all the Muslims around the world Eid Mubarak Assalamu alaikum we just want to wish you all a happy Eid all the Muslims around the world Eid Mubarak Eid wanaagsan ما شاء الله جزاك الله خير إبراهيم بافو waxaan tahniyadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed Eid Mubarak meel kasta ay joogaan waa markii ugu horeysay aan ciid ku suubinay jamciyadda Dar es Salaam waa aad ayaan ugu faraxsanahay bismillaah maanta waxaan u dabaaldegnay munaasabada ciida oo aan halkan Daarusalaam aan isugu imaanay ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan waxa leeyahay ciid wanaagsan waxaan u hambalyeynaa ummadda muslimiinta guud ahaan meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed wadankii jooga iyo wadankan aan ku noolnahay Australia waxaan u rajeynaynaa ciid wanaagsan waxaan rabaa inaan u diro dhammaan Soomaalida weyn ciid wanaagsan ciid mubaarak gaar ahaan anigoo kamid ah maamulka xarunta Daarusalaam oo sanadkan ugu horeysay ciid koowaad ku ciidnay Allahu akbar bismillaahir rahmaanir rahiim ciidan maxaa waa ciid ugu horeysay ku tukanay masaajidka Daarusalaam أنا ما حاكم ده المها أو اللي رده كشقة مساجد وحن مانت هالكان أستراليا مانت وعيدنا الحمد لله وحن عيد مبارك ودرنا شعب الصومالي ودن كجديسة شعب كونال أستراليا مقالنا ملبون عيد وناكسن وحين لنا هاي عيد وناكسن عيد سنة وحن رجعنا إلى نوت عفمان نو جارسيو مركوه رئيس وحن لي هاي عيد مبارك ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan Ilaahay uga baryayaa ciidan ciideeda kale inuu na gaarsiyo anagoo bash iyo barwaaqo iyo dalkii oo degay si buuxa u degay waxaan salaam gaar ah u dirayaa hoggaanka dalka madaxda ah iyo inta kale iyo bulshada inteeda kala dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak shaqadana garabkiina Allah galo guud ahaan Soomaalida iyo muslimiinta ku nool Australia ayaa maanta maalintii ugu horeysay Ciidul Fidriga halkan ay ku ciideen iyo masaajidda kale ee dalkan Australia dalka New Zealand ayaa waxa la sheegayaa in maalinta Khamiista ay tahay maalinta ugu horeysay ciidooda Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia